shalay haddaan labadooda u kala socono u kala ordayni saaka maqaaxiyaan wada fadhinaa ku wada shaahaynaa waxaa siinayna kala fogeyn meelna la kala geyn magacaygu waa Ducaale Haarun Daahir waxaan ahay dhalinyarta ku nool magaalada Boorama waxaan ahay dhalinyartii u kaambeyn garanaysay oo codeysay xisbiga wadani doorashadii iyo codeyntii waxay noogu soo dhamaadeen si nabada waxa dhow waqtigii lagu dhawaaqi lahaa natiijada guud ahaan Somaliland cidda heshay madaxtooyada waxaan ku baaqayaa dhammaan dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasta oo joogaan in natiijada la aqbalo si nabada lagu aqbalo sida nabadeen ku soo codeynay baa la rabaa si nabadan in natiijada ku aqbalno kora kursigaba waa Kenya weeyaan reer Somaliland baynu nahay meel ma kala tagayno Soomaalidu waxay tiraahdaa badiyaabo waa bahdeen marka kuwa Boorama jooga ma taqaanaayay labada musharax oo kala ordayay musharax madaxweyne ku xigeen ambassador Maxamed Cali oo Cabdi iyo musharax madaxweyne ku xigeen Maxamed Xasan Saacin labaduba waa laba ma taqaanaayay adeeradeena waa laba tolkeena shalay haddaan labadooda u kala socono u kala ordayni saaka maqaaxiyaan wada fadhinaa ku wada shaahaynaa waxaa siinayna kala fogeyn meelna la kala geyn marka sidaa nabadeen ma taqaanaayay codku inoogu soo dhamaaday natiijadana insha Allah ku sugno commissionka inaan ku hordhicin maalinta 21 ka bisha November uu ku asteeyay han sugno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته